Salaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan isla arki doonaa sidee loogu duubaa kombiyuutarka ama loo rangareeyaa Office-ka. Marka ugu horreysa waa inaad iska eegtaa in antivirus-ku kaa xidhan yahay. Antivirus-ku wuu inaga xidhan yahay. Qodobka labaadna waa inaad iska hubisaa in khadku uu kaa xidhan yahay. Sidoo kale wuu iga xidhan yahay. Kadib waa inaad set up idhaahdaa, right click ku dhufo. Kadibna waa inaad doorataa Run Administrator. Kadibna waa inaad kasoo doorataa halka ay ku qoran tahay Run. Intaa kabacdi marka aad runta i xiirsigtid accept dheh. Kadibna waxaad oran doontaa Continue. Intaa kadib waa inaad tirahdaa Install now. Hadda sidaasuu kugu install garoobaya ama kugu soo degaya. Wuxuu qaadan doonaa waqti yar oo kooban. Soo noqod wanaagsan. waayahay intaa kadib waxaynu isla arki doonaa sidee haddaba loo activate gareeyaa waxyaalihii kaa dhacsanaa. waxaa loo activate gareynayaa kow inaad tagtid browserka kugu jira sare Chrome-ka oo kale, kadibna aad ku qorto message.com, kadibna aad halkaas ka baarato koobiga aad linkiga koobi garaystay. kadibna marka aad koobi garaysato waxaad imaan doontaa meesha loo yaqaano search-ga kombiyuutarka. waxaad ku qori doontaa power Windows Power shirkadda saaxiibada ayaan rangareyso. kadibna wuxuu kuu saari doonaa daaqadan. Sorry, waxaa laga yaabaa daaqadan inay kuu muuqan weydo oo ay kuu soo bixi weydo sida tay u soo bixi weydo. waxaana laga yaabaa amni ahaan inuu xidho oo waa daaqad aan la ogolayn in la recording garayo.